haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxa u ah booliis iyadana hadday dowladdu xun tahay macnaheedu booliiskaan shaqaynin hadday dowladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dowlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya waxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu hooseysa ka soo qaadna saldhigyada booliiska ama stationska ay joogaan oo xaafadaha ku yaalla marka loo yimaado oo dhibbanno u yimaado waxaa laga rabaa iyagu inay soo qabtaan kii dhibka sameeyey oo si sax ah ay report u soo qoraan oo ay u soo qoraan CID-da fiiriya meeshay ka bilaabatay cadaaladda meesha ka bilaabatay cadaaladda maaha maxkamadahu maaha meesha ka bilowdaan iyo garsoorayaashu waxay ka bilaabataa cadaaladda taliyaha jooga saldhigyada booliiska markii qof dhiban oo cabanaya oo xaqdarro lagu sameeyey ee u yimaadaan ee intay ka qoraan wax alla wixii dhib ah lagu sameeyey oo kii dhibka sameeyey soo qabtaan ee u soo gudbiyaan CID-da oo CID-dana uu baaro in saldhigan waxa uu hayo macluumaadku hayo inay sax tahay oo kan CID-dana uu u shaqeynayo si hufan oo musuqmaasuq ka fog kadibna faylkii oo dhammaystiran uu u soo gudbiyo xeer ilaaliyahana keeskiisa uu ku dhisto keyskii ka soo bilowday taliyaha saldhig ka soo bilowday markaas weeye marka maxkamaddu iyo garsoorayaashu ay ka gaari karaan go'aan saxa marka oo cadaalada laakiin haddii keysku uu hoos ka soo bololo oo isagoo dhintay ugu yimaado macnaheedu waxa weeye cadaaladdarra dhacday cadaaladdarra haddii dhacdayna bulshada aan matalayno ama bulshada aad u shaqaysaanna waa kala fogaanaysaan maxaa yeelay bulshada iyo dowladda waxaa ka dhexeeya xiriirkooda waxa weeye xiriirka ku dhisan cadaalad markaad ka shaqaysaan aad hawshaas saas waajibaadkiina u gudataan waxaad ku soo dhawayseen bulshadii dowladdoodii aad ku soo dhawayseen waa taas meeshay ka bilaabatay dowlad wanaagga marka waxaa soo haray booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin traafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey laakiin haddii booliiskii aysan saas u shaqaynin sidaas hufanaysan u shaqaynin waxaa leeyahay dowladdan waa dowlad xun meeshaas waxaa imaanaysa marka meesha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ama ay ku isugu dhawaanayaan ama ay ku kala fogaanayaan hadaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and order-ka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad u adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaarkaaga waa taxpayers canshuurta iyagaa bixiya mushaarka aad ku qaadato markaas waxay imaanaysaa dadweynahaasi inay jeclaadaan dowladooda oo ay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan ay ilaaliyaan shuruucda ay canshuurta bixiyaan haddii canshuurta la bixiyana dee mushaharkaaga waxa weeye dowlad hufan oo wanaagsan weeye way kordhinaysaa mushaharkaaga maxaa yeelay dadku waa qanacsan yihiin oo daryeelkoodii iyo adeegoodii waa la fuliyey waxaa intaas ugu sii muhiimsan dadweynahaas waxay noqonayaan muwaadiniin wadaniyiin ah oo maxaa ku raahdaa ku qanacsan dowladooda oo la yiraahdo good citizen markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan bacdama aan nahay dowlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid waa jeclaan lahaa shacabka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed
iyagu inay cod kala haadaan oo ay doortaan laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno waxaan haysanaa waxa la yiraahdo doorasho dadban doorashadaas dadban oo laga hadlay waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dawlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yiri iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo iyay wax noogu hagaagi karaan waa ku faraxsanahay inay booliiska Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda waxaan rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaalad falaan waa soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 uu ka hadlay heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaalaa aniguna waa saxiixay waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo la isku qabtana si xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ku jirto in looga wada hadlo laakiin principle-ka uu ku dhisan yahay asaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakiray aad looga shaqeeyay in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo ugu dambeyntii waxaan noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa insha Allah in la dadargeliyo inta harsan oo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay focus gareeyaan ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan maxaa yeelay hawsha noo taalla oo kaliya waa doorasho waxa naga sugaayo ummadda Soomaaliyeed naga sugayso waa doorasho waxa loo baahan yahay in doorashadaas noqoto doorasho hufan doorasho cadaalad ku dhisan doorasho lagu qanacsan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu tartami karo insha Allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhamaato wassalaamu calaykum abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland